ama hawiye ah ama daarad ah ama dir iyo digir milfataa doonta ama beelaha shanaad ahaa wuxuu mudnaa cidii qarxisay sida lala rabay iyo mid dambaabnay gabar ma qarxisay waxa soo dhan aan rabaa inaan ka hadlo ragga geeridiis kadib jeejeesan inaan ka dhawaajino lama huraan igu noqotay waa garateena fila horta walaalka yariiso waa geeriyooday haddii uu caafimaadkiisa ka soo hagaagi lahaa qodobo badan ama aragti badan aan qabi lahaa way isbedeli lahayd cawada laakiin hadda waxaan rabaa inaan wax yar idiin badhaamiyo horta yariiso nin walaalkeen ah oo tol ah oo miskiin ah dabcan siyaasadiisa iyo shakhsiyadiisa isma laha siyaasadiisa waa diidanaa laakiin shakhsiyadiisa ma diidaneen ilaahay jannatul firdaws ha ka waraabiyo isaga intii muslim ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee wada geeriyootay qaasatan intii gobolka ku dhimatay horta waxaan leeyahay jannatul firdaws Allah ka waraabiyo rag tol ah qaraabo ah oo xalana ku jiro rag badan ay ku jiraan oo aniga si qaas ah ii taabanaysa geeridaas oo dad famil aan nahay jufo hoosanahay ay u badnaayeen laakiin ilaahay jeclaaday laakiin iyaguna nasiib wanaag ma noqon doonaan kuwa laga har geeridooda kuwa aan si toos loogu hadlin xaq ay lahayn leemeedku xaq u leeyahay aniga ka hadlaaya idinkana waa inaad igu saacidaan inaad share gareysaan oo aad idinkana la wadaagtaan dadka kale ha isku darsanin inaad hadli weyso iyo inaad muuqaalkan la share gareey weyso ummadda Soomaaliyeed maadaama xogtan ay tahay xog muhiim ah waxaan wallaahi oo billaahi oo talaa weligay qof Soomaali oo dhintay waqti ma gelinin inaan baaro geeridiisa u dhacday yariiso ka hor ama adeerkay ha noqdo ama eedaday ha noqdo ama mas'uul dawlad ha noqdo boqol mas'uul naga dhimatay awil baa u dambeeyay dad ii xigay oo dhintay oo mas'uul ah waa taqaanaan waxba ii sawirmay markuu dhintay awil daahir salaad oo ilma adeer saddexaad nahay markuu dhintay inaan qaraxaas loo wadin oo ninkan gaarigan baabuurka hubka uu saaray qoryaha dabada la saaray aba jaanisku ah controlka hadii uu adkaado saasa u gartay wax baaritaan kuma sameyn laakiin yariiso geeridiisa iyadaaba ku dhahaysa baaritaan igu sameey warka waxa fiican in dadka ina daawanaya oo hadda ku dhow 2500 at least xataa waa ogolaaday 1500 baa xogta og igana le hadii dadka aan wax ogeyn aan u soo bilaabo xarunta gobolka Banaadir waa la socotaa waa meelaha ugu adag marka loo amaan xafiiska ra'iisul wasaaraha kan madaxweynaha iyo xafiiska gobolka Banaadir waa meelaha ugu adag aan la geli karin haddii nin isku qarxi la albaabkeeda wax la garar waayo wax la garto waayo waa soo socoto waxaan 15 sano ugu dambeysay laakiin in qarax uu ka dhaco hoolka shirarka oo ay joogeen mas'uuliyiin heer caalami ah gudoomiyaal degmo agaasimayaal waaweyn waxa la Allah u naxariista kamid yahay iyo kuwa kale aan xaqireen aan magacooda xasuusan iyo gudoomiyihii dhamaa iyo duqii Muqdisho ayaa qarax ka dhacay hoolka shirka horta ummadda Soomaaliyeed way dhageystay wax dacwo ka qaban ma arkin haddii ummadda Soomaaliyeed ay ka hadli lahayd arintan oo Puntland Jubbaland Hirshabeelle iyo Galmudug ay arint ama Koonfur Galbeed arintan la faaqidi lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhaxan ay ka hadli lahaayeen anigu waa iska istaagi lahaa kama hadli lahayn laakiin waxaan la dareesay in arintan ay qolo goori u taalo mucjisadan magaalo goori ku siman tahay taasaa sabab u ahayd inaan cawada idin la wadaago xogta aan arintan ka haay aniga xishoonin anigoona u hadleen oo ka fogaanayo qabiil iyo u hadleen dabcan waa dhiirigelin doonaa qabiilku ka dhashay laakiin qabiil waxa uu soo ziyaadinay waa rabaa inaan ogaado waxa ay aaminsan iyaga laakiin waxaan u hadlay rabay Soomaalnimo waa la waayay marqaati ma katiin madaxweyne Puntland mid Jubbaland mid Koonfur Galbeed iyo mid Hirshabeelle mid Galmudug iyo mid Soomaaliyeed oo yariiso ka hadla ma aragteen dhimashadiisa iyo mas'uuliyiinta kale ma jirto haddii arinta eesaas u biyo dhacdana waxa la rabaa in arintan loo biisho qaab qabiil intaas qaab qabiil loo guda gelin waa in aan aqbalno dhamaanteen in dawladda Soomaaliya ay raggan dayacday warar kale waxa soo baxaya leh anigu taana gadaal baa ka hadli doonaa horta yariiso dabcan aakhir alle maanta aakhir u jira yariiso waa la shirqoolay waxaan iri video live aan soo galay maalintii qaraxa dhacay baaritaan badan ma jirin horta ummadda Soomaaliyeed inay iska kay cafiyaan website-yadii iyo idaacadihii soo qoran la iska cafiyo wax ka jira male gabadha isqarxisay wax ka jira male ninkan qaraxa boorsa loo soo geliyay hoolka shirarka la dhigay gabadha uu ku aadamayna ama qaraxi uu ku toosana horta dambi waa la geliyay horta ayadu waa meed Allah naga cafiyo dhamaantiin aamiin dhaha horta gabadhaas wax uma qarxin qaraxa wuxuu ku jira boorso
eeg okay gabadha hataa waa isqarxisa ka soo qabo gabadha waaba isqarxisa ka soo qabo gabadha indhoosha ah ee qolyaha naafada u qaabilsanad gobolka yaa u suurtageliyay in boorso albaab la soo marto waaba indhool yaa 15 iyo albaab oo controlkoodu adag yahay oo alaabta waa taqaana Soomaali dhiiq la isku siinay yaa gabar dhogool oo indhool u suurtageliyay waxa ma la yaani waa inaan gabar ka dambeeyay cadeena laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego oo cawada aanan ku cadaab galaynin walaalkay Yariiso waa marxuum horta jannada Allah ka waraabiyo u duceeya Yariiso waa la shirqoolay yaa shirqoolay waa su'aasha dad waxay ku leeyihiin farmaajo shirqoolay dad waxay ku leeyihiin qeyraad shirqoolay anigu ma qabataa Yariis waa la shirqoolay ana hadda ilaahay ka cabsaayo farmaajo shirqoolay ku dhihi maayo sababta farmaajo wuxuu awoodaa inuu kursigan ba ka dajiyo oo sidoo taabid uga tuuray Yariisona uga tuuray ninka ragga been laga ma sheegay mucaaradnimadu waa gooni mucaaradnimadu waa halkeeda anigu wuxuu ilaahay la og yahay haddii maxamed cabdullaahi farmaajo uu Yariiso nacay kursigan iiga dago dhihi lahaa sun baa la sii lahaa si kala loo dili lahaa laakiin qarax gobolka dhaxdiisa inuu ka dhaco farmaajo taa hal anigu kulay anoo diidan siyaasadiisa iyo amni darada oo ku fashilmay amnigu ku fashilmay waxa badan ku mucaaradsan tan farmaajo waa ku dambaabeysiin iska daaya wala qeyra ku dambaabeysiin iska daaya rag kale oo dawladda ku jiro oo aan naqaano ayaa horta Yariiso oo aan la baarin de haddii runta laga gambado aqarna ilaahay wanaga caroona umadeena been baa loo sheegaa waxaan rabaa horta intaan Yariiso u guda gelin qof walba oo shacabka Soomaaliyeed mas'uul u ah maanta oo dareemayo mas'uuliyad waxa dareentaa in kaarta shacabka markay leeyihiin ilaahow kuwana dhaafi markay shacabku leeyihiin مسؤول قرنوا يقدر يجلس الشعب كلي لما هاللوية إله كوانا دافي شعب كمالو بركي كليين أو جبر سومالي قرح كل متو أو ويل سومالي قرح كل متو أو أبى سومالي جعنت كجو أو ويل سومالي يلوت كجو أو حملي سترن كواي أو قاروايان قالت كواي حبار تمان واحد هان إله كوانا موتي حبارك شعب كان هرتو ميل علاق ومدعو مدعو الصومالي مثل ما نسي هولنتي بين بعض الشيطان waad inkirtaan xuquuqdooda waxaan xasuustaa rag badan oo qarinayo mucaarad ayaa saano dawladda ka nuxsadno dhibaatada waxay ka jirtaa shabaab oo qarxinayo dawlad shacabna ku dhamaanay cid ka hadlaysa mucaarad iyo muxaafid meeshan mucaarad iyo muxaafid qor isku haysta ma jirto taas aan kaga gudba xaqiiqda dhabta Yariiso ku saaray Yariiso baaritaanka ugu horeeyay aan sameeyay waxa kamid ah waxa lagu leeyahay kaamirada gobolka waa la damiyay 2 days ago ma gabadha indhoosha ah ay nabeen inkastoo si official loo dhigay gabar indhoola waxaan ka dambeysay gabadhaas waa marxuumad laba arin aysan ugu dambeeyna waa inay cadeena number 1 kaamirada la damiyay 2 days ago laba maalin ka hor ma gabadha indhoosha ah horta damis adinka iga jawaaba gabadha indhoosha ah ma amarka gobolkay ku shaqeysaa korantadiisa iyo kaamiradiisa iyo nadaafadiisa ma shaqo ku leedahay taas su'aasha shacabkan rabaarta inay iga jawaabaan wax gabar indhool dhoo ma jirto taas waa ku qanacday Soomaa inaysan gabar indhool waxa ku dambeeyay gabar indhool ilaa kaamira ma dambi karto waa qanacday Soomaa labo inaysan gabar indhool ah qarax fulinine meedkeeda markii la qaadayo qofka markuu suun ku xiran yahay fiiri suunka qaraxay dheenayay si wax u sheegeen suun qaraxa Afghanistan ku aragna Iraqna ku aragna Suuriya ku aragna Soomaaliya ku aragna Nigeria ku aragna intaas buu ka dhaceen oo TV-da ka daawana suun qarax qof isku soo xiray hilbihiisa go'o dadka xamar jooga la hadlaa qof markii gaariga loogu xiro qarax lug soo ma go'o ama dhaxda soo kama go'o qarax gabadhan waxay u dhaawacantay dhaawaceeda dadkii duugameedkeeda ayaa ii xaqiijiyo wallahi gabadhaas fir ayaa galay gabadhan aan maskiinta aan nabnay waa qofku ugu horeeyay nafta ka baxda saas argu nabay waana indhool shaqadeena qofku ugu dambeeyay shaqo soo gasho gobolka aheed saas horta gabadhaas lagu nabay marxuunta ilaahayna waxa afis ka weydiisana in gabadhaas marxuunta aan dambi ka galay inay iska ilaahay cafi idinkana afis weydiisto gabadhaas firra galay same sida uu xalano u dhintay sida gudoomiyii waa bari u dhintay sida gudoomiye Shangaan uu dhintay sida Yariiso uu dhintay gabadhaas firre ku dhimatay aqar la qabsan maayo suun qaraxa haduu jiray gabadha soo ma kala go'i lahayn
وأقبل لها هذه قبل حمني إذا كلا جوي لها لكن قبل أفر فرة كشودن أفر فرة قاتير تودي ميت كده ولا قال أفر فرة ولا مت يريسو صدق كلا أفر فرة كلا حرام صدق كلا شل فرة لا فرة يا وحخر حيي مجرى قف هولك كجري أو كلا جوي مجرو بورصة قرح لسوق جليواي قابك بورصة إنها تهاي وحكوا عدينا كاميرا دنا ولا سيدمي أوكي أربعة وحقوقهم هذا اللي يحشونه يو ده كورت ماشي سكول أنت هل بالي أهاين ده كوب بدن هل بالي أهاين قدوبية كحجان كجوال كبنادر لأنك أمنية طولة واللغة هلا يكون أمنية كوسابسن ولا الكي طولة متجوجين إيجا قرصوا ماريه maxaa loo gambana maxaa been loo sheegay yaa ka baqaysa ani sheegay yaa ka cabsanaysa anigu filana deganaa ilaahay uun baa ka baqaya wixii aqli ii sheegayo xogna aan ku helo dad xamar jooga leh booso sana wax u jiraan walaalkeeyo ma sheegi karno adima noo sheegi kartaa of course yes I can't tell them waa u sheega dadka aniga walaalkay tuula oo nin Soomaaliyeed oo nin hiraab oo nin habar gidra oo aan jeclahay أمنيكو قابل سنة كلن كنظافة لوجا مهلين سيد السجار كدين جلس وياه لوجا مهلين سيد عافمات كان لوجا مهلين كلن كي أمني قال لوجا هلين أجلس ميال شغلة نظافة دوي ودي جوجن نينكي أمني أنا هو معنا أنتاس قفك أما سفر وجري كرا أمو حنوسكرا حتى أنتاس وكعفي طولة وحكلو كعفي ولا شيء بل دك طولك لا أما قبل كأشقي سوق واحد كان لا أبر بريبراني طولة ولا شيء شقلا مسوق جرين ما علمتاس ما علمت كوريسن وشقيريسي ولا شيء سلطة قبل كشقي طولة قفكر تسوي بيلون يبغى حد ولا شيء كشقي ويس متجوب تدق قبل كأنت وعدان ولا شيء قبل كشقي ساي يس ما علمك قرح دعاية متجوب مية هدي له قديه وين أنا قال لك كي قدام أنا حداون وركي قدام أنا حدجيسن walaalkay tuula dambi baan ku heesanaa umada Soomaaliyeed nin xun ma aha nin wanaagsan ma aha waxba ma ku eedaa shakhsiyadiis laakiin beesha uu ka dhashay yariiso tuhun bay qabtaa anaana u hadlooy warka soo bacad warkaas macadiya war aabale ma yahay war xalaal ma yahay war nadiif ma yahay intaas migu raxsantii walaalkay tuula saddex su'aalood waa inuu umada Soomaaliyeed uga jawaabaa كلن كي أمني قال له هلا يريسو يتدكي كلا يكون إنتان إسقى مسؤولية أمني إيه صارنت دقن ودق مجاله واحد ولا كي تروح متجوجين ولا شيء سن متجوجين أمني جنا وكمان كارنتي سوق جد وجودهم واحد معك صباح حتى حساب حتى نمبر جلاسك هو صبر تادي تاس question ما صار على سؤال صار وافنت سما هل كان يدك طولة weligay inta noolaa tuulax inta arintan laga cadeynayo ama gudi loo saarayo tuulax baar horta taas waa okay waxa soo haray nin mahad ala laho oo nin mursado qeyr ku reer oo uu qeyr keensaday oo ku xigeen u ah oo xuseen dhagaweyna bedel ma taqaanaan ninkaasna hal arin ayaan maanta ku haystaa anigu u hadlay yiriiso tulkiisa baan warkaygu u cadiyay هوي وانهاي وحي اللي اسكت تابسنسي وحي اللي اسكت فرفرتين قبيل كلي نقني بيل اي وحون حيرر علينا سوما ولالكي ما حد الله هاد الدولة مقعاوات تقانان أنا ومدهاي محو كلكو ما واي وانك عرمها بلشدو واي أمن مقابل السلام لكن لبس سؤال الرواء إن باشا مرصدة اي أرنتان دب اقول لابتان هورتو هدان هاي مدلود وانا مركي خيارة او دنتي dadkii tacsiil intaas oo geela keena way abtiyaan oo ahayn nin la janwaawiyana oo aha wuuna naga tagay mudulood sidii rabeen ama sidii laga filayay waa uga qayb qaateen anigu murusada waa qabiil ma dhahayo murusada san sameey ma dhahayo murusada dad qadeeyo tabliiq wadaad baastar cid walba leeyahay sida qabiilada kala dad laakiin nin liira mahad alle intuu kafee soo fariisto uu dhaho waa arab gajo mugto waa kaftan taas قدومي توحيدات لبض سنة فاحت أنا نقاعد ما يقول قدوميها يدق من لبض سنة طلعت أنا فرماجة ثلاث إيري طيارات ثلاث إيري حرتو ولا الكيسو ميلة
oo dhintay inuu dhaho kursiga anaa sii haynayo horta taas qalad ah dhaawac uu ahaa yariisow qadar oo jiifa dooxa dhaawac uu ahaa kursiga anaa sii haa 2 sano yariisow madaxa kooma kaga jiro mahad alla waa ku ceewoobay ma sagarta inuu raali gelin abgaarsiin mudulood midna munusada inay horta raali gelin bixiyaan raba inuu naayo ku shukaansado 2 sano anaa gudoomiye gobolkay doqda madax anaa ifti ahaayo mahad alle inuu yiri cadeeran u haya oo naagaha shishadaha maaragtay iyo gabdhii maaragtay kafayada fadhiyo ku shukaansado cadeena waa u haya haduu inkirana cod waa keena ani soo dad aqyaara 5,000 oo qof salama hadlay cadeen waa keena haduu walaalkay raali gelin bixi waay ma bixi waay beesha mursada raali gelin laga rabo taas waa baab waay hadii uu raali gelin bixi waayeen warka qeyr iyo farmaajo oo ah tuunka ani ma qaba ka ee way dileen yariiso ayaa soo baxaya hadii gudoomiyaha laga dhigo taas oo Soomaaliyeed iyo dadka yariiso inta Soomaali iyo yariiso geeridiis ka damqanays ayaan si qaas u hadlaya hadii gudoomiye eeg waxyaabaha aan ka hadlay cawada yaab kale waxa kamid ah hadii gudoomiyaha gobolka Banaadir ah duq magaalada Muqdisho lagu daayo mahad alle ninka la yiraahdo Ibrahim mahad alle wuxuu yiraahdaa ma qaan anigu mahad alle u garanaa neestise la daayo mahad alle si ahaado warka yariiso oo ah in qeyr iyo farmaajo ay shirqooleen waa ay cadaayaan sababta wax kale ma hadii anima hubeeta in shirqooleen laakiin taasaan ku kala ogaan doona hadaan ummadda Soomaali nin walaalkiisa dhaawac oo tolkiisa ah oo xididkiisa ah oo in adeerkiisa oo isbitaal dooxiya dhaay toddomiyaha gobolka Banaadir anaa 2 sano soo socota ah taasi godob weyn oo mudulood laga galo oo mahad alla ka galo qabiilka ma gelin naacaskaas haduu garan waayo godobtaas uu gabdhaha ugu sheekeeyay beesha sharafta leh nala dhalatay mursada naga jaahil bixinays abgaalo saas ku oraa lahaad ani mar damay soo wicina soo war dad kortooda ma sheegin abgaalo hadii godobtaas gabdhaha lagu shukaansaday uu u gafiyo walaaliin mursada waxa uu gafinaa tal midigteena oo nala dhashay oo aan jecelnahay way iyaga naga xaal marinay xaal way kalmadaas gudoomiyaha gobolka Banaadir ku soo haray waxa cajiib ah horta abgaal laba arin ay ku ceebeysiin anigu abgaal kaliya uma dooda ceebtoodan waa sheegaa nin abgaala kalmadana iga qora nin abgaala soomaalida abgaalku waa la fuweer wasjecel yihiin waa mitibeen waxa ogeyn ku bilaabina dhaawac oo noqdo ilaahay qeyr ha siiyo ilaahay ha sharfo qadiijo maxamed diiri ayaa ilaahay geeridiis doox ka daba socotay hal nin oo mas'uul abgaala oo geeridii dhaawaciisa raac ma aragtay wala xilibaan wala saaxiibadii ha ahaadaan xildhibaanaas ولا وزير